istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sidata oo cibaadaadka iyo طaacaadka waaweyn layna faray oo dhan waxa daba yaala istikfaar مثلا xajku waa arkaanul islaamku ka mid yahay cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah markaad carafa istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم istaaga baa ilaahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xarabka annagu ka bixi mayno carafi xarabka way ka baxsanta markaa muna iyo intaan xarabkaanu joogaynaa waxaa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaane dib u soo noqotaan waxaa camal samayseen oo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahay istikfaar waxaa layna baray oo nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaadda markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabannaa waa maxay nebi maxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 ma macsi buu samaynaya oo ka astaqfirulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hor nimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeennu meel kale jirnay mar baynu waxaynu akhriynay aynu fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يا الله كعب صدي آخر برأي إلى بيودي جنوين بيليه آخذين ما آتاهم ربهم وحي قادريا وحي السيبا ليري النعمة أي آخره ليه لكن إلهي وحليه سببت ومحي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirso haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtu cibaadaysto ayuu wuxuu ku gebagabaynayaa salaaddiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga se maan gudanin waxaanaan sameeyey caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahay saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidembika walilmu'miniin baa layidhi ka dabagee haddaba ayuha alaxibba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi maxamed 23 sannadood buu jihaatamayey aakhir suurad ahaan nebi maxamed ugu soo degta bal waxa alla faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambaysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'a nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik واستغفره إنه كان توابا markaad aragtay uu kuushiisu marka hore nasriga iyo fatxiga ilaahay baa siiyay waa min ni'am ilaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay ku timi aad maka iyo adduunba furatay oo waraayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka oo diinta koox koox u galaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi maxamed isagaaba la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayay qof baa intuu islaamu odhanayay orod reerihiinni qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodii oo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanahaan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan de maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay
markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka walacleh halkuu qofku isdhuldhigi laa odhan lahaa ilaahu adaa guushiiyo nasriga ay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuuma ka furanaya guulaysanayey neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaaduu nebigu soo galay calayh salaam isagoo mutakabbiroo isweynaynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya maxay samee baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku maraya ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tansiih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aad xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufan yahi waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilahna waa maxay waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox koox u galaan ilaahay weyneeyo xumo ka huf ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aad camal la timi wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurle aan la imi waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey ilaahayow iga aqbal dheh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyahay innaga maxaad u malaynaysaa markaa markaynu soo soonnay ee salaadnay caynkan haddii nebi maxamed oo intuu diintan u dagaalamay oo naf iyo nafiisba u huray oo 23 sannadood waday la yidhi arrinku hadduu kuu dhammaystirmay waxaad ku gebagabaysataa baa la yidhi ilaahay ammaantiisana ha ka daalin wixii kaa uun gaabis uun si uun kaa noqon karana waxaad tidhahdaa ilaahayow intaasaan awooday istikfaar iyo toobad